السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أروجو وحنا هي داوين إلهي بعافماتك بحياة وحنا دكتور سمية داور رقمتك مقعي وحنا لها دكتور شامع عبد الله إلى الجعل وحنا كل داوين داور رقمنا عذرك عن وحكبار لنا شيبارك عن وحكبارنا ووريسك قفك عافماتكنا قادرك بحياة Soomaalidu isma indho buuxiso hadda in badan baa waxaan u sheegnay inaan hayno daawooyin anfacay bulsho kala duwan oo adduunka meel badan ka yimid dadkii aad iyo aad arintii waxay ka qabaan cabsi bay ka qabaan example hadda nimankan odayaasha hadda meesha fadhiya waxaan u keenay inay ka turjumaan wixii ay ka arkeen daawooyinka iyaga waana ilaahay faligiisa aniga aqoontaydu waa ka balaaran yihiin daawada waxaan bilaabay inaan wax ku daaway 2003 ayaan bilaabay waana ilaahay filigiisa aniga aqoontayda waxaan ka bilaabay koob iyo 30 qof baa ii diwaan gashay xagga taranka ah tii soo jawaabtay oo aan adeyntoodii hayo oo spermkoodu shaqaysay ها سفعن داوم رقمتك waxaan ku daaweynaa aniga shaybaarkayga waa wareysiga qofka baabasiirku waa 3 nooc infectionku waa 3 nooc gaasku waa 2 nooc sonkortu waa ganac oo shaqeyn waayay caafimaadkana qaadirka bixiya daawadan aniga sameeya example hadda qofka baabasiirka la 3 meelood buu galaa mar wuxuu galaa dabada wareegeeda banaanka nawro burburun baa daawada sameeysaa marna wuxuu galaa walamadka afkiisa oo soo qanjiro burburun buu leeyahay fartu gaadho qofka saxarada dhinac bay uga timaadaa marna wuxuu galaa mindhicirka oo dabaduna way cuntaa qof saxaraduna kama timaado cudurka la yiraahdo infectionka ama galaha la yiraahdo raga 3 nooc ugu dhaca galanuug iyo galabar iyo galaqanjir baa la yiraahdaa mar labada xaniyood baa ku dheeraanaysa marna way kala dheeraanayaan marna xaniyihii iyo xubintii taranku waa dhamaanaysa oo ninka boofis baa ku dhaco waa la sixray buu yiraahdaa ma urujaalku waxay noqdaan wax jilicsan hadiiba soo baxaya marna qofka xogo ka imaan mayaanba cudurka la yiraahdo gaaska waa labiga dhadig mar wuxuu galaa labxanshada hoosteeda olol buu leeyahay markuu qofka ku raagaan kurtun buu sameeyay biyaha iyo caanaha marka cabaysid waxbay dejinayaan hoos u riixayaan baa isleedahay mar wuxuu galaa xidmaho diburu leeyahay qofna markuu dhuuso nafisa qofna markuu daaco cudurka la sokorta waa ganac shaqeyn waayay dhacaamadii rabay iskaarkaan inuu tuuro jirka ku soo celinaya caafimaadkana qaadirka bixi daawadan aniga sameeyo waxaad weydiisaan baan diyaar wahay nimankan waa daawo dhaqameed dhir ah malaayiin aniga daawadayda boosaas lagu gadaa garow waa lagu gadaa gaalkaayaa lagu gadaa waxaan u diraa Dubai baan u diraa Kismaayaan u diraa في أي مكان ملك سومالي إنسان جوجو والله يستعمل داودي كل كرشنات بنودرا وان جوجا مل ربع والله كرا وحنا نودرا يا هذه أنا وحنا هينين خيراتك كوتشرا علمي كوتشرا ودمديسة إلهي فانسيو أفريقيانا وحي كفاية سنة يا وحنا نصو هلاي wax run oo shaqeynaya waana ilaahay faligiisa oo aniga aqoontayda waxaan waa ka balaarin waxaan ugu bishaareynayaa oo ku soo dhaweynaya dadka ku hadla luqadda af Soomaaliga la yiraahdo meel kasta ha joogo Itoobiya ha joogeen Soomaaliya ha joogeen Djibouti ha joogeen Kenya ha joogeen inaan u soo saaray khayraadkii wadamadooda ku soo jiray kuwan sir akfati wax la yiraahdo lahayn intaan daawada shaqeynayay in badan baa waxay sameysay overdose sameysay waxba yeesh طريقة الاستعمال بخلطين example هذا نبى واحد اللي يمكن المجال واحد ويتو وحنقول واحد ضبها أنت يصدق بلو داوينه بوصير يوعدوا كان قالها ليها قبل لو هرينا يقبل لو هرينا والله حنتي سابح حظي $100 بيش يسكب حوان كويس وروح نقوليها أنا بقول جسيني سابي وبقوليه ميلها كسروني يصير ورا هذي قوليه صار ورسان كويس حقو أنت كسر رجيبه هو العجة يكاني وأنا العكس ودوين حتى مسلم بأنا قفك هدو يراهد وحما هيستو نين دريمي كرانا لكن وحي عن انت أصوصنا مسكحة قليل وكشغيني وحكو شيء وحن قريبا وحبا هين انتو كاني بانو قرفت
saddex jeer buu iga qaatay daawada aan isku toosanayn anna daawo dhammaystiran ma siyaasana lacag dhammaystiran ma baxsho habeenkii dambe anoo saddexin daawada ka iibsaday oo nina $100 markaa ka qaatay labana rabo min konton ka qaatay waxba kama jira wax aqriyo waa been loo wariyaa iska daayay waxaan ku yiri waxa ku hayaa waxay u baahan yihiin 3 bilood daaweyna bakteeriyada ku haysa damiin la imow shil lacag aniga haysiina nin odayaha damiintay oo isaga isgaranayeen 3 bilood baan dabada u qabtay ilaahay baa caafimaadka siiyay markii dambaan meeshii imid waa ninka adduunka oo dhan marka u soo bandhigay ninkaas u ahaa daawooyinkayga run baan sidii ay ahayd u qaatay waana ilaahay fadligiis marka dawladeedka inta badan gudaha Soomaaliya waa laga helaa waxa jira kuwa kale oo ka tirsan meelaha banaanka oo muhiim u ah in dadku daweyso 64 geed baan ku shaqeeyaa qaybaha inta badan banaan baan iga yimaadaan inta kale halkaan ka sameeyaa oo dhir isku jirta weeyo dhir magaalada dhir baadiyada بسم الله الرحمن الرحيم waxaa la yiraahdaa Abu Bakar Abdi Xaashi baa la yiraahdaa waxaan ahay odayaal ana waxaan ku baraarugay anigu caad u kacaya sidii nin kamaan dooso oo kale cirbaha intaan saa ugu fariistaan caad u kacaya waxyaabahan kale oo ka dareemay waxa weeye daalkii muruqyada dhinac kasta ha aatee iyaguna way tageen shirkayga markii anoo finaad qaba aan dhiido oo kale kuleelku ay galayay qabowgu ay galayay wixii oo dhan waxa weeye difaaci uu buuxsamay waxaan dareemayaa inaan 15 jir aan ahay dhankan kale oo gudaha ah oo baadilka ah dee wax qashina oo gashay daawada ma jirto qofku saxaro badan buu sameynaya kaadi badan buu sameynaya wax allaale iyo calooshiisa wax uu ogol yahay ma jirto waxyaabaha kale oo anigu shakhsi ahaan tijaabiyay waxa weeye inuusan ogolayn geedkaanu jirka daawada tanu wax kale oo siyaada ah in ay kula noolaadaan oo uu yahay daawo aad u awood badan oo qofka jirkiisa sida waxyaabaha antiviruska ah oo ay uga ilaaliyaan kombiyuutarada iyo aaladaha casriga ah fayrasyada ay uga la dagaalamaan oo wixii siyaadaha ka tuuraan inuu ka tuurayo tijaabaan qaaday waxaan aad ugu rajo weynahay oo aan aaminsanahay sida burustaatada dhakhtarku nooguma sheegin arrinta laakiin anigu baaritaanka iyo daraasaadka aan geedkan ka tijaabiyay burustaatada daawo u weeyay qanjirada daalay waxyaabo badan oo dhibanaya organaa inuu nooleynayo baan anigu daraasaad ku sameeyay kuwa kana waan ku wadaa waxaan rajaynayaa inaan dhakhtarka dhinaciisa naftayda aan uga dhigo shaybaar oo aan waxyaabo badan soo ogaado ogeedkan daawo u yahay waxa weeye waa daawo ilaahay dhulkeena ina ka siiyay wax sayl infective ay leedahay ma jirto af Soomaaliga waxa lagu yiraahdo wax iyadu xanuun ah oo ay keento anigu si kasta loo isticmaalay qasay shaah waa ku daray biyo waa ku daray nooc kasta oo isticmaal in wax dhibaato oo ay keenaysaa ma jirto daawada tanu reero badan oo kala tagay oo aanu darisnahay waxay sheeganayaan in guul dadka qaar baa waxay leeyihiin maslax u bixiyo daawada maslax reerihii dagaalsanaa waxaan leenahay waa qayb siyaada ah oo la soo siyaadiyay wax cilmi weyn iyo barasho ay u baahan tahay ma jirto saas un baa isku macbiranaysaa waa iska qasanaysaa wadna la saaxiibaysaa haddaad qoryaha cabtid iyo haddaad iska miidhid iyo waxay ku yeelaysaa ma jirto dheefshiidkaaga la shaqaynaysaa kaadi mareennada la shaqaynaysaa qoryaha rasaastooda waa iska diyaar reeruha heshiiskooda waa okay waxaan leenahay ku soo dhawaada ninowna ha ka biqi mas-uuliyadeedaas waa la adkeeyey wax iyadu ay cudura oo ay xambaarsan tahay iyo dhibaato ay kugu reebaysaa ma jirto si kasta aan tijaabinay والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد ولا ليال هل كان وحن كشيء إياه دكتور جامع دوّد وسميه رجع استعمالي بان كمده هاي واستعمالي وليبا waxaan taa waxaan isticmaalay midda waxa weeye gaarka ah oo
qasitaanka ah wax badan oo fadli ilaahay baan ka helay asagana ilaahay baa noogu diray alxamdulilaahi rabbil caalamiin annagana ilaahay baa nagu daaweeyey dadaalkiisa waxaanu ku soo dhaweynaynaa bulshada inuu yahay nin waxa uu qabtay wax saxa ay yihiin wixii hadda bacdigeed u baahdana wax saxa ay yihiin waa fadli ilaahay waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kaiiran wamaa yadakaru ilaa ulul albaab waxaa weeyaan khayr ilaahay siiyey xikmad ilaahay siiyey weeye xikmaddaas ilaahay u bixiyey waxaa garta dadka ulul albaabka ah islaamkao dhan buu anfacahayaa waxyaabaha aan ku aragnay waxaa ka mida markaannu dawadaas cunnay qofka hawadiisu yaraatay intishaarkiisu awood inuu yeelanhayo inuu mataqaanaayey rag iyo dumarba markii arrintaas la sameeyo dabagal lagu sameeyo sida dhabta ah waxaa weeyaan dadkii cabbay oo anigu aan ka mid ahaa waxaan ka helnay awood siyaadaa quwad siyaadaa baan ka helnay waxaan ka helnay caloosha oo ay ka sii dayso waxa qashin oo ku jira waxaan ka helnay cunnada xanuunkan laabjeexa la yidhaahdo ama gaaska la yidhaahdo dawadiisaan ka helnay haddii ay biyaha ku raagaan oo muddo hameynna ay ku jiraan iyo haddii dheyd lagu sameeyo labadaba isku sibay u shaqaynahayaan wax haba yaaraatay isbeddela oo tabdiila ma ay lahan waa fadli ilaahay baana bixiyey digtoorkana ilaahay baa noogu sakhiray oo noogu diray waxaan anigu kala kulmay waxaas weeye waxaan ku soo dhaweynayaa ummadda soomaaliyeed iyo dadka islaamka iyo bulshada wada nooshka dawadaas wax laga shakiyahaya ma aha waa wax ilaahay inoo keenay waa wax ilaahay dalkeenna inaga siiyey waa wax ilaahay digtoorkeenna inoogu qaxrayo inoogu dhiibay ha laga faa'iidaystaan leenahay qof walba awooddiisa iyo karaankiisa iyo cudurkiisa ha ka faa'iidaystaan leenahay waana fadli ilaahay isagana fadliga ilaahay baa loogu soo dhiibay caafimaadka ilaahay baa bixiya laakiin haddii waa mujtahidoo dadaalkiisiibuu wuxuu ku helay waxa kan ilaahay baana ugu sakhiray musakhiraati alcabdu muyasaru limaa khuliqa baa la yidhi ilaahay wuxuu addoonka u abuuray buu u sakhiraa ilaahay baa u abuuray ummaddan inuu maaragtay dheef ku siiyo nacfi ku siiyo oo ku gargaaro oo cudurkeeda kula dagaalamo caafimaadkeedana ku kobciyo ilaahay baa u sakhiray musakhiraadka ilaahay bay ka mid tahay waxaan bulshada ku soo dhaweynaynaa ummadda soomaaliyeed inaan laga shakiynin inaan loo arag geed aan mataqaanaa time lahayn inaan loo arag waxa kan leeyahay waxaan mataqaanaa xanuunka sidaan uga warbixinayna inay tahay in loo arkaan rabnaa daalika fadlullahi yuutii man yashaa wallahu dul fadli alcadiim waxaan kala kulmay waxaa weeye bulshadana waa ku soo dhaweynaya waxay xagga tarankay la xidhiidhaa xagga waxay kaloo la xidhiidhaa caloosha shubankeeda waxay kaloo la xidhiidhaa jirka oo ay dhiso badanka jirka oo qofka yacni maaragtay duuduubkii iyo wixii mataqaanaa dabacsanaan ah ay tiirinayso taagayso qofka laftiisiiba ay gabowga ay ka togayso maaragtay ilmaan caadi ay ka muujin jirkii oo dhan ururinayso waxyaalaha aan ku arkay waxaasaa ka mid ah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala magacaygu waa cabdirasaaq warsame maxamed baa la yidhaahdaa daawadan waxaan qaadanaya muddo 6 bilood ah oo kala fogfog oo aan wada socon jaamaca maalintii isbuuka ay horeysay oo uu yidhi dawadan way ku anfacaysaa waxayna ku anfacaysaa gaaska aad baan wala sheekaystay anigu dawadan faa'iidadan ka helay waa 4 qodob macnaha hadalka ma badinayo 4 qodob the first one marka ugu horeysa horta anigu waxaan qabay gaaskii aan qabay markaan isticmaalayay bil waxaan aad u dareemay waxa gaaskii ahayay inuu aad u yaraado hoos u dhacay bishii labaad markii aan bilaabayna dhammaanba ool gaaskii waan waayay waxyaalaha gaaska aan ku dareemo waxaa ka mid ahaa marka aan casheeyo oo kale caanaha isbedelay oo suusaca noqday oo kale markaan cabbo waxyaalaha xataa maaragtay kale oo sida hilibka oo kale dibiro badan baan dareemi jiray daacad tiro badan gubasho jirku u gubto waxyaalahaas oo dhan oo gaasku uu watay way ka bixin jirkayga qodob waa qodobka labaad waxaa weeye waxaan xaqiijinayaa daawadanu inay tahay mid dhisaysa muskulka waa muruqaha jirka oo uu ka mid yahay xaajada hadda laga sheekaynayay way dhisaysaa muruqu hadduu adkaadana qofku waxaa u suurtagelaya waxyaalo badan oo resistan uu yeelanayo adkaysi waxaa ka mid a kaadida inuu ceshado waxaa ka mid a shaawada inuu ceshan karo
waxaa ka mid ah yacni socodka qofku wuxuu ku tillaabsadaa oo qaadaa gacmaha ama jidhka ka shaqaysiiya waa muruqa murqahayga isbeddel weyn baan ku hayaa waxaa kaloo jiray waxyaalo effect oo gaasku ugu reebay oo ay ka mid tahay lafa xanuun dhabarka kala goysyada yacni waxyaalahaasna aad baan uga fiicnahay in laga faa'iidaysto inay tahay daawo gaaska anfacaysa waxaa kaloo ay leedahay maalinta aad bilowdo waxaa imaanaya calooshaada qashinsaar baa imaanaya qashinsaarkaas waxaa weeye yacni saxaro imaanaysa oo aan shuban ahayn oo aan ahayn mid adag ahayn oo tii yacni qofka bini'aadanka aan dhibaynin baa si caadi u imaanaysa caloosha way sifaynaysaa murqaha waa dhisaysaa gaas waxa la yidhahdaa haddii calooshu ay qashinkuu ka yimaado waa yacni iska tegayaa gaasku intaas oo faa'iidaa baan ku hayaa dadkana waxaa kula talinaya daawadan waa daawo waxtar ah inay qaataan xagga caafimaadka waayo drugskan dawooyinka ka samaysan way ka fiican tahay daawada naturalka oo heerbarka ah daawadani inta aan qaadanayo waa bil iyo 6 iyo 10 maalmood bay maanta ii tahay intaasoo xanuunana aan kaga raystay waxaan idin farayaa oo dadweynaha farayaa wadadka aniga ila midkoohow daawada qaata ha ku meeraysanina waxaan waxba idiin taraynin xoolihiinana ku baabiinina waa garantiin waan qubaa qaata daawada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت تقابل. أنا حرشة كيسان عفماك يوسف وحيوان صورك حق الترى. واحد بضد. ترى كي يبقى عاد صورك. صوت كي يبقى كل شيء عاد بانا. انت ترى عاد بانا. ده عادي جاز كمان تبي يقول لي. جاز. قولوا واستاجي يا سوسي. حرج دبان كل شيء بركة ما رواي. سيجار بكل شيء. كذا نقصيحه. نقال كيس بركة ما لقي ما هي. ترى جالس في الدنيا يا هذا مركز الحمد لله رب العالمين انت صوبنا دول بنكوها يعني مركز dadka ilamadka dadweynaha waxaan ugu gudbinayaa daawadaas inay garantiin tahay baan ugu gudbinayaa waxay ku tirta maahan inaan wax yeel horta ma jirtayaan wax tar maahan wax yeel ma jirto kuwa ka baqayo wax ka baqina taasa ku guwaabinaya qaata oo say tahay qaata عذر لما وداوه عذر لما سدح حقيت وداوه السلام حاولت كم خد دريتي الدوين كان مليين مقعين ممكن تبغى نضكي مكان عصيصين وحواس ما رباصين مقع قال هو سفي عن صاحب daawada horta saddex nooc waan sameeyaa saddex magac aniga ii gal leeyihiin mar xubbi baa la yiraahdaa marna xubbin nisaa baa la yiraahdaa marna xarbun nisaa baa la yiraahdaa marna islaaxu sawjooni baa la yiraahdaa horta saddexdaas nooc bay aniga ii kala tahay waa qaacidada aan sameeyay waataan sameeyay qaacidada la oran jiray man ajasa an istimtaa faliyati shajaratan inda jaamac bisur'a jaamac waa aniga caafimaadkana qaadirka bixiya هذا تن أو كله أنا جوراقة يلي هذا تن وبابسير كواحد تن وضدك جاس كقبال لو قدره تن لعب يغفو البواسينا تن وحال لو قدره ضدك قبال سكرت ما قرت لبدا داو تن وبابسير كتاش هالك مقطع وقالوا يسجوني داو أشح ميرة ويقف ندب يسدوجن مايو سجى اسمه ملاية هذا إكسامبل هذا نينكي هذا سكرت قبل ما أنت لويتو wuxuu ku jiraa asaga yiri aniga halay adeegsado xayeysiin Facebook ay ku jiraa asaga isdhiga wuxuu yiri Soomaali dadka luqadda ku hadla ana u gudbinayo daawadaadu inay shaqeynayso sokorta inaan kaga biskoodo adduunka dhan la soo maray waana ilaahay fadligiis waana la shaqeynayaa Soomaaliyay wixii garanay danaynaya anigu isaanku way soo kaymid Soomaaliya ama Araba wixii bil aadanka in aadan turaab oo dhan anigu waa u shaqeynayaa waana ilaahay fadligiis هذا من فضل ربي وحسير إفكتيا ملء داودان أنا أقول طبيب ما هي مجرب عنها وحنا اللي تجابي مكت داود أنا أنت سميستها وحي كنت من أصل كذي هل كاسي كتو أنا اللي قلت تجابي وأنا إلهي في الليجس
وكا علمي هو قرأت مساحة حل أو كلام علمي وحو كوي بختار باي بريداني وحنا أنا حنوصلي معلم بان لها لحدني أفر جد ببر مركان بسكوتو دي أنا وقاعدين إن تنين أهي كصوت حرايب لحدني أفر جد بان كقري جد يجد دير ونفور لكن هذا أنا ودي بوك بان قرايو هدي هذا أنا هلا دولة أنا مقارنة واحد نوبم مقارنة دي إن ما أرتب هالشيء قرينه ninka anoo kala cilmigan soo ogaaday ama shiinaha ama Malaysia u dhashay dawladdiisa afangariso tisaleedkiisa saysa ma garata dawlad maskaxdayda maalaysa hadaan helno waa u soo saarina cilmigan hayso laakiin inta kale anaga isku waardeeyeen waxaan u dirayaa waxaan soo ogaaday anigu cilmi waxaan soo ogaaday waa ilaahay falligiisa أنا وحنا هاي موقتي مجرب بانا هاي صوت شابية وحنا ما قرأتي هذا أنتي أنا ما نرهب هذا رنتي إن ما أرتي أنكون مشغول أو وحي نصيبكم لكم ميوه ما نرهب إن كلا فائدة سنة إن شاء الله وحي أنا ربا دائما هذين إلى فلقي سويه